caalamkii universal iyo iminka iyo qodobada ugu waaweyn biidnillaahi kariim. Israa'iil ayaa maalintii saddexaad dhibaato xoog leh iyo weeraro cirkii dhulka ka wada magaalada Janiin oo ku taala daanta galbeed, halkaasi oo lagu laayay dad badan maalintii shalay ilaa 10, maantana wararku waxay sheegayaan ilaa 6 qofood iyadoo dhaawacuna uu aad u badan yahay. waxay adeegsanayaan dayuuradaha cirka ka weeraraya iyo hubka culus ee dhinaca dhulka iyo weliba baldoosarada oo markaasi ay si aad ugu baabi'inayaan dhismayaasha iyo weliba wadooyinka. dad ilaa 10 ayaa la dilay ilaa shalay ilaa maantana ilaa 6, dhaawacuna aad buu u fara badan yahay. isbitaalada ku yaala daanta galbeed ayaa iyaga laftooda dadkii ka shaqeynaya qaarkood dhibaatooyin la gaarsiiyey iyadoo uu sheegay dhakhtar lagu magacaabo Abu Wasim Bakar in ilaa 3 dhakhtar iyo 2 ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka ay dhaawaceen ciidamada wadankaasi Israa'iil gaar ahaan daanta galbeed isbitaal ku yeelay. nin kale oo dhakhtar oo ka shaqeynaya isbitaal lagu magacaabo Al-Amal ee isla daanta galbeed ayaa sheegay in isbitaalka looga yeeray si uu qalliin u sameeyo kadibna gaarigiisii markii uu dhigo uu ka baxay lugta laga toogtay oo dhinaca kalena dhakhtar kale sidaas oo kale isagana la dhibaateeyay. waxay ku andacoonayaan inay jiraan qolyo hubaysan oo iyagu jooga dhinaca daanta galbeed oo iyagu maalmo ka hor sida la sheegay 3 ka tirsan ciidamada Israa'iil dilay, laakiin iminka waxay u muuqataa sida uu ka dhawaajinayo wasiirkooda dhinaca gaashaandhigga Israa'iil Gatis in ay casharadii ay ka qaateen dhinaca Gaza ay doonayaan inay ka fuliyaan dhinaca daanta galbeed. jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxay shaaca ka qaaday in dhib xoog leh la geystay oo dad badan oo reer Janiina la barakiciyay, taasoo aan ahayn mid quman ama ballantu aanay ahayn in dhib dambe markaasi la isu geysto. dhinaca kale wararka ka imanaya dhinaca Gaza waxay shaaca ka qaadeen in la soo diray qolyo kala duwan oo ka socda wadamada dunida qaarkood iyo jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo iyagu eegaya guud